waxaa maalintiisii saddexaad galay dibadbaxyadii ballaarnaa ee ka soconayay magaalada Baydhabo kuwaas oo si weyn looga soo horjeeday xildhibaan Shariif Xasan oo ay si weyn uga soo horjeedaan siyaasadda uu xambaarsan yahay oo ah in la dhiso maamul ka soo horjeeda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee golihiisa wasiirada dhawaan la magacaabay dibadbaxyadan ka soconayay magaalada Baydhabo ayaa ka sii kulula kan maanta ka dhacay magaalada Baydhabo iyadoo saacado loo qabtay in uu Shariif Xasan kaga baxo magaalada Baydhabo taas oo ay ciidamada AMISOM dibadbaxyaashu u ballan qaadeen sida ay mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ku qanciyeen dibadbaxyaashu Abdulfataax Ibraahim Geesi oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa arintaasi u sheegay dadweynaha dibadbaxyay degmada Baydhabo Shariif Xasan sheeg aan ku horjeediyaa banaanka isugu geed Baydhabo dadka hirna wali Baydhabo toobi sagiri kabiir banaanka suriyi wali lana dawladda federaalka hadiye iyo isku dirsiga golaha shacabka oo hadal ma lahaay dimuqraadiyada wadanka hadal shakhsiyaad hayna oo dantiisu shaqaysteen hay wali nin ku biiday beledka hadiye beledka ku biiday tan guriyaha iska jaran ka galaan biidin ilaahi kariim insha Allah shacabkana ma go'aan soo hay inii soo jeeyaa aman soo jeeyaa inii sila aamiya go'aan soo way ku xigsadaan وعسلانة قدوميها بارلمان كوانا كنجانة مرلمات مرسدها كنجانة مسو إيش شغلة إني أصير دقدقة بلتني كوكسارن هذه بلت كوكسار وين لنا مين فضان نقوله وهم بهاي إنه شعب كذا ماي إنه شعب كترتر لنا وكيل شعب كنا قد قرر ما يحيط ويكو عسلانة هالكوز هايو أو هل طبعا ما ده إنه كقاضي إنه كعزل يكو عسلانة دولة فدرال كه ما إما إلا هاي وسلنا ولا ولا قبض قرمين لان شعب ولا قبض قرمين لان شعب كم هذا القرمين لان شعب كنا ما يفضوا لان جدا كذا فضوا قريجي هنكسكين دبي خيار dhinaca kale mid ka mid ah dhalinyarada ka qayb qaadanaysay dibadbaxyaasha ayaa waxaa soo gaaray dhaawac rasaas ay soo rideen ilaalada Shariif Xasan Sheekh Aadan oo magangelyo AMISOM ugu jira taas oo ay ciidamada AMISOM ay sheegeen in ay aad uga xun yihiin in gadaashood xabad laga soo rido waxayna fariin u soo direen maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaana dadweynaha uga warbixiyay wasiirka dawladaha hoose ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shiina Macalin Nuurow لكن حتى نيجا هالني شام يرني هالساق قدانتي بس فرصة هالنسيج هالكاساق هو بشامه ولا هذا شيء واحد هذا ويلك هلا كان اسبتالك أميسون وداوينينا هديك ربناك وقادينا دوال سو داوينا عنق أميسون ضربت إني قادين لو وريتو مي فهمتين أميسون ضربت وعلى صوبحنا عيك لو ديبا كان يدهن هدي عندك داوينا بناك وقادينا مقصود متين أسأل سوشينا شيء وهذا ما تحكي لكن سجان ولا نيوري si kastaba ha ahaatee dibadbaxyaasha
ayaa waxa ay wacad ku mareen in aysan joojinaynin ilaa uu Shariif Xasan uu kaga baxayo magaalada Baydhabo. Abshir Maxamed Nuur, Royal TV, Baydhabo.